salaamullaahi calaykum halkani waa dunida t v qodobada aad ku daawan doontaan warkanana waxaa qeyb ka ah somalilan oo taangiyada dagaalka soo kicisa si ay uga hortagto kacdoona ka socda qeybo kamid ah gobolada sool iyo sanaag kuna aadeysa puntland inay gadaal ka riixayso nabadgelyo darro ka dhacda deegaanada somalilan. madaxweynihii horeeta ee Soomaaliya Farmaajo oo weerar afka ku qaaday Somaliland una hiiliyay beeshiisa degta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool. Mareykanka oo war culus ka soo saaray xiisada ka taagan magaalada Laascaanood xilli ay dibadbaxyadu weli sii socdaan. beesha Mudulood oo raali gelin ka dalbatay taliyaha ciidanka lugta General Bixi oo ay sheegeen inuu u gafay. qodobadaas iyo qodobo kale oo daasan ayaad ku daawan doontaan warka dunida TV u diyaar garo. fadlan haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato hambogaan subscribe saarto YouTube kan kana mid noqoto saaxiibada ku xiran mahadsanid aynu ku horeyno. Somaliland ayaa soo kicisay taangiyada dagaalka waxayna u soo ruqaansadeen dhinaca gobolka Sool. wararka naga soo gaaraya saldhigyada military ee Somaliland ee gobolada Togdheer iyo sidoo kale gobolka Gabiley ayaa ku waramaya in la soo kiciyay gawaarida gaashaamana ee dagaalka si ay ugu biiraan difaaciyaasha horeete ee ku sugan aaga gobolada Sool iyo Sanaaga. kicinta ciidamada ayaa timid kadib markii maamulka Puntland ay sheegeen inay ciidamo ka direen magaalada Garowe kuwaas oo garab istaag u muujin doona ciidamada iyo dadka shacabka ah ee kacdoonka ka wada gobolka Sool. boqolaal ka tirsan gawaarida gaashaamana ee dagaalka ee militariga Somaliland ayaa lagu soo waramayaa inay u soo ruqaansadeen dhinaca magaalada Laascaanood. inta la xaqiijiyay Laascaanood waxaa ku sugan ku dhawaad 40,000 oo askari waxaana la filayaa in Somaliland ciidamo badan ay halkaasi soo dhoobto. wasiirka wasaaradda warfaafinta Somaliland ayaa wacad ku maray inay cagta mari doonaan tilaabo walba oo la xiriirta dhinaca isku horkeenta iyo ka hortagitaanka midnimada iyo wadajirka Somaliland. wasiirka warfaafinta Somaliland waxa uu ku eedeeyay in aysan aqbali doonin waxa uu ku yeeray gacmo hesheeye oo doonaya inay qalalaasa ka dhex abuuraan qorshaha la xiriira horumarinta iyo nabadgelyada Somaliland. waxa uu sheegay Salmaan Cali Koore inay xalin doonaan cabashada dadka shacabka balse ay gacan bir ku qaban doonaan dad aan Somaliland ahayn oo dhibaatada qayb ka ah doonayana inay fadqalala ka sameeyaan. madaxweynaha Somaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu waramayaa sidoo kale inuu amar siiyay saraakiisha kadib markii ay soo bixeen warar la xiriira dhinacyo kala duwan oo doonaya inay qayb ka noqdaan xiisada ka taagan gobolkaasi Sool. dadka ayaa weli dibadbaxyada ka wada magaalada Laascaanood waxaana sii kordhaya khasaaraha ka dhashay inkasteeto ilaa iyo haatan aysan jirin tirakoоб sax ah oo khasaaraha laga helayo. madaxweynihii horeeta ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa si gaar ah u taageeray beesha uu ka soo jeedo ee degta gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynihii horeeta ee Soomaaliya oo abtiyaashiisa ay degaan magaaladaas ayaa si adag u cambaareeyay Somaliland wuxuuna sheegay in halkaasi ay ka geysatay xasuuq ba'an oo dadka shacabka lagu dhibaateynayo. Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo dibad joog ka ah Soomaaliya waxa uu sheegay in Somaliland ay muddo badan dhibaato ku haysay dadka shacabka ah ee ku nool Laascaanood iyo guud ahaanba gobolka Sool. wuxuuna sheegay in la joogo waqtigii dadka shacabka ah ay ku qaadan lahaayeen qorshe la xiriirta ammaankooda iyo kala dambeeyntooda inay iyagu sugtaan. Farmaajo ayaa isgarab taagay kacdoonka dadka shacabka wuxuuna eedayn dusha kaga tuuray ciidamada Somaliland oo uu sheegay inay dad shacab oo birmaqeyda ay laayeen. sidoo kale taageerayaasha madaxweynihii horeeta ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa baraha bulshada si adag ugu weeraray xukuumadda Somaliland iyo ciidamadeeda waxayna ugu yeereen in Somaliland ay ka dhaceen waxa ay ugu yeereen genocide taasoo ah in xasuuq loo geystay dad rayid ah.
taageerayaasha farmaajo ayaa la sheegay inay arrintaani kaga falcelinayaan kadib caro xoogan oo ay ka qaadeen markii xukuumaddii muuse biixi cabdi ay si adag ula dagaalantay soo laabashadiisii madaxtinimada, gaar ahaana doorashadii xildhibaanada oo ay xildhibaanadeeda ku cadaadisay inaysan codkooda siin waa xildhibaanada kasoo jeeda gobolada waqooyi. Cambaarinta ka imaaneysa mas-uuliyiin iyo nabadoono iyo odayaal dhaqameed ayaa keentay in xiisadu ay cirka isku sii shareerto. Ilaa iyo haatanna ma jirto cid dhinacyada kala duwan kala dhex gashay. Madaxweynaha Soomaaliya iyo guddoonka golaha shacabka labadaba waxay ku baaqeen in xiisada la dejiyo oo miiska wadahadalka la iskugu yimaado, walow arrintaasi aysan muuqan. Dhinacyada kala duwan ee xiisadu ay u dhaxayso ayaa sheegaya in ay midka kaleeto uu ka gar leeyahay, iyadoo ujeedkuna uu yahay in dhinacyada midka kaleeto uu doodiisu kaga guuleysto. Dowladda Mareykanka ayaa ka hadashay isla dhibaatada ka jirta magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool. Waxa ay sheegtay dowladda Mareykanku inay la socoto dhaqdhaqaaqyada gobolkaasi. Qoraal ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa lagu sheegay in Mareykanku codkiisa ku biirinayo dadka doonaya in xaaladda la dejiyo. Wararka ku saabsan rabshadaha Laascaanood, waxaan codkeena ku biirinaynaa dadka ku baaqaya in xaaladda la dejiyo, ayaa lagu yiri warka ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho. Waxaa kaleeto lagu yiri qoraalka safaaradda, nabadda iyo kala dambeynta waa in la ilaaliyo, lagana dhowrsado dagaal lagu waxyeeleeyo shacabka iyo sidoo kaleeto burburinta hantida. Qoraalka ka soo baxay safaaradda Mareykanka ee Muqdisho ayaa kusoo beegmaya xilli maalinkii shanaad oo xiriir dibadbaxyo xoogan ay ka socdaan aagga Laascaanood ee gobolka Sool. Rabshadaha ka dhashay dilalka isaga ee dad rayid ah, nabadoono iyo aqoon-yahano ayaa sababay in ay kordhaan, waxayna dadku ku dhawaaqayaan erayo ka dhana Somaliland oo ay ku eedeeyeen inay gabtay mas-uuliyaddii loo idmaday ee ahayd sugitaanka iyo wax ka qabashada dhibaatooyinka, halka dadka qaarkoodna ay dalbanayaan in guud ahaanba ay ciidamada Somaliland magaaladaasi iskaga baxaan. Odayaasha dhaqanka beesha Mudullood ayaa raaligelin ka dalbada taliyaha ciidanka lugta ee Genaraal Biixi oo ay ku eedeeyeen inuu u gafay beesha. Dhowaan markii la xoreeyay degmada Ruunidgood ee gobolka Shabeellada Dhexe ayay sheegeen inuu halkaasi ka jeediyay hadal qadaf ah oo kasoo horjeeda sharafta iyo maamuuska beesha, sidii hadalka u dhigeen. Waxa ay dalbadeen in la sameyn doono qorshe la xiriira dhinaca isla xisaabtanka, iyagoo sharciga la tiigsan doona haddii uu raaligelin ka bixin waayo, tallaabana ka qaadi doona. War-saxaafadeed ka soo baxay golaha beesha Mudullood ayaa lagu yiri waxaynu dalbanaynaa raaligelin degdeg ah oo la xiriirta dhinaca Genaraal Biixi ee ku wajahan beesha Mudullood. Haddii uu tillaabadaasi uu ka gaabsadana waxaynu kula xisaabtami doonaa sharciga, ayay yiraahdeen. Golaha midnimada beesha Mudullood waxay sheegeen in Genaraal Biixi ay kula xisaabtami doonaan gafka iyo dhibaatada uu ku hayo dadka kasoo jeeda beeshaasi iyo deegaanada uu ku sugan yahay. Warka ka daawanaysan Dunida TV waagay intaas sidaas.